sida ay sheegayaan kooxaha qiimeeya hawada waxaa la filayaa in maanta Soomaaliya ay ku dhufato duufaan xoogan oo weheliyo roob aad u xoog badan. shirkad aruurisa xogta jawiga caalamka oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantan ay ka soo bilaabmayso koonfur bari dalka Soomaaliya, gaar ahaan meel 600 oo meel u jirta Raas Caseer, iyadoona la filayo in caawa ay ku dhufato deegaanada waqooyi bari ee dalka Soomaaliya. saacadu markay tahay 12 habeenimo caawa 25 bishan December. duufaantan oo ah nooca loo yaqaan Tropical Storm 4 ayaa la sheegay in dhibic dhaceedu noqon doono 8.2 ayna keeni doonto 1 daqiiqo oo ah dabaylo aad u xoogan oo xawligoodu saacadii ku socon doono 101 kilomitir ama 360 mayl. waxaa sidoo kale laga digay in dabaysha iyo boorka ka kici doona dhulka ay aad u sareyn doonaan marka duufaantu ay socoto. waxaa duufaanada ay si gaar ah u saameyn doonaan xeebaha deegaanada Puntland, gaar ahaan Eyl iyo meelo ku dhow. militariga dalka Mareykanka waxa ay sheegeen in akhbaartan ay tahay kaliya mid feejignaan ah oo aan loo qaadan karin kuwa ku salaysan go'aano dhimasho ama naf halis gelin kara. waxayna sheegeen in qof kasta oo ku sugan deegaanadan, gaar ahaan Somaliland iyo Puntland, oo ka walaacsan badbaadadiisa nololeed uu la xiriiro hay-adaha dalkiisa u qaabilsan cimilada, balse nasiib adeegaasi iminka kama jira Soomaaliya. digniintan ayaa waxa ay si wada jira u soo saaray militariga Mareykanka oo u gudbiyay Tropical Storm Risk hay-adda lagu magacaabo TSR oo ay ka mas'uul yihiin hay-ado badan iyo jaamacadda UCL ee London ku taala. Cabdi Fataax Axmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.